haweeneydiina sidii hooyadeed fartay ayay samaysay. dabadeedna waxay u timi boqorkiina markii uu arkay aad ayuu la dhacay quruxdeeda, balse naagta ayaa ku tiri haddii aad aniga i doonayso anna waxa aan doonayaa madaxa Nabi Yaxya calayhi salaam. balse boqorkii oo arrinka la yaaban ayaa ku yiri maxaad tiri? waxayna naagta ku tiri waxaan doonayaa madaxa Nabi Yaxya. boqorka ayaana diiday arrinkii sababtoo ah boqorkani waxa uu ka baqayay Alle inuu kala kulmo ciqaab aad u daran. waxa uuna ogaa in qooman fara badan oo reer bani Israa'iil ah hore loo cadaabay loona halaagay, balse naagta arrinkii kama aysan quusan, way ka tagtay. waxayna u timi maalin kale, waxayna u sheegtay isla sidii waxaan doonayaa madaxa Yaxya ibnu Zakariya calayhi salaam. ugu dambeynna boqorkii ayaa arrinkii ka aqbalay kana ajiibay. waxa uuna ku yiri waa yahay, waxaan u dirayaa ciidankayga si ay qoortiisa kugu keenaan. waxa uuna ciidankiisi amray in ay soo qabtaan oo ay soo dilaan Nabi Yaxya. haddaba ciidankii waa ay baxeen, waxayna tageen gurigii Nabi Yaxya, waxayna arkeen nabigii oo tukanaya, xitaa isma aysan oran waxa uu ku jiraa salaad. waxayna la dhaceen oo ay ku boobeen seefahoodii, waxayna ka soo jareen nabigii qoortiisii.